ururka xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland waxay magaalada Hargeysa ku soo bandhigeen warbixinta ka rogaysa tacadiyadii sanadkani ka dhacay Somaliland. Hana Cabdisalaan Maxamuud gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi oo warfidiyeenka la hadashay waxay ka warbixisay amuurta ay daaran tahay warbixintoodani waxaana sheegtay warbixintu waxay soo jeedinaysaa in baaritaan lagu sameeyo geeridii dadyoogii ku dhintay gacanta biliiska sida dhacdadii magaalada xaafadda Jigjiga yar saldhigga biliiska Koodbuur iyo dhacdooyinkii ka dhacay magaalada Boorame. warbixintu waxay ku talinaysaa in biliiska Somaliland uu isticmaalo awoodiisa si taxadir leh nidaam leh oo waafaqsan sharciga iyo nidaamka caalamiga. warbixintu waxay ku talinaysaa in la joojiyo xadhiga iyo tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda. waxaan u soo jeedinaynaa dawladda in ay joojiso dacwada ka dhanka ah suxufiyiinta wargeyska hubsad isla markaana xayiraada laga qaado wargeyska Haatuf loona ogolaado wargeyska hubsad inuu shaqeeyo. warbixintu waxay ku talinaysaa in idaacadaha madaxa bannaan laga furto wadanka iyo in dadka u baahan ama doonaya in ay sameeyaan mudaharaad salmiya ogolaanshiyo la siiyo. warbixintu ugu dambeyn waxay soo jeedinaysaa in la sameeyo shuruuc ka ilaalinaysa dumarka tacadiyada ka dhanka ah dumarka isla markaana kor loo qaado ka qaybgalka siyaasadda ee dumarka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa isla eedayntaasi loo soo jeediyay ciidamada jawaab adag ka bixiyay waxaanu ku tilmaamay inaanay warbixintaasi waxba ka jirin. wasiir ku-xigeenka oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi warka ay soo saareen hay'adaad sheegtay xuquuqul insaanka madax bannaan wax ka jira ma jiraan runtii hal qeydin baan u arkaa oo misle sababtoo ah har iyo habeen dalkeena waxba ka dhaca sida adduunka kale wax uga dhacaan waa la qabtaa waa la maxkamadeeyaa wixii aan wax lagu helinna waa la sii daayaa wixii wax lagu helana waa la xukumaa. inta dila ka dhacday waa ogtihiin anu burcaan joogi jiray barasaabkii burcaan ilaa hadda weli xilkii maan weyn oo ilaa 26 dil baa ka dhacay mid nagama baxsan wax la xukumay wax la kala qaatay maktab reeri ka heshiiyeen inta weydii ta booliisku sameeyo dawladda muxuu ahaa qaada muxuu ahaa hawsheeda in magal laga bixiyo runtii aanu maan jeclay ninka falxun ku jira ee dawladdu gacan u geysato sababtoo ah haddii la yidhaahdo qofkii la dilada sidii reeraha dawladdu ha bixiso magta ha bixiso wax macquula maaha. Rikosaar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa.